عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. waa habeenimo talaada oo ay arbaca soo galayso taariikhduna waa 22 bisha Juulaay sanadka 2025. haddaba qodobada barnaamijka caawaan idinku soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona taangi lagu gubay galabta magaalada Gaza, askar kale oo nagta looga saaray jaamacadda carabta oo golaha ammaanka warbixin u gudbisay ku saabsan arinta Gaza iyo sidoo kale Suuriya, Israa'iil iyo Mareykanka mas'uuliyiin ka socda oo qamiista kulan xasaasi ah yeelan doona. haddaba maxaa Turkiga looga saaray kulankaas? tafaasiil ku saabsan wararkaas soo kordhay ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idin la socodsan asxaabay. habeen wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. waan filayaa inaad si weyn uga hesheen macluumaad aad u xiiso badan oo aan kusoo gudbiyay maanta barnaamijkaygii galabnimo iyo kii subaxnimo labadaba. haddaba caawa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Saraaya al-Qudus oo ka mid ah jabhadaha ka dagaalamaya Gaza ayaa waxay sheegeen in ay waayeen xiriirkii kala dhaxeeyay koox iyaga ah oo gacanta ku haysay maxbuus askari Israa'iili ah. haddaba lama sheegin meesha laga waayay isgaarsiinta iyo meesha go'doomintu ay ka dhacday, laakiin waxay sheegeen ilaa hadda inay la yihiin askariga iyo qoladii la socotay isgaarsiintoodii. haddaba wararkii ugu dambeeyay oo goordhow Al Jazeera ay qortay waxaa leeyahay Saraaya al-Qudus ayaa waxay sheegtay in markaa ay weeyeen oo uu kala go'ay xiriirkii u dhaxeeyay kooxdii ilaalinaysay askari Israa'iiliya oo maxbuus ah oo ay gacanta ku hayeen. haddaba Saraaya al-Qudus garabka militariga xarakada Jihaadul Islaami ayaa sheegtay dagaalyahanadeedu inay xiriirkii waayeen muddo ilaa shalay ah koox ka tirsan dagaalyahankooda oo ilaalo ka hayay askari Israa'iiliya oo maxbuus ah oo ay kooxdaasi gacanta ku haysay. haddaba waxaa la sheegay in isgaarsiintaasi ay luntay kadib markii ciidanka gumaystaha Israa'iil ay go'doomiyeen deegaan aan la sheegin oo markaa askariga lagu hayay. haddaba afhayeenka kooxdaasi ayaa sheegay in markaa la waayay xiriirkii kooxdaasi oo markaa askariga gacanta ku haysay. askariga magaciisa waxaa lagu sheegay Rom Barasalskiy, kaasoo la sheegay in ay gacanta ku hayeen kooxdan. marka Saraaya al-Qudus marka waxay leedahay askarigaas iyo kooxdii waardiyeynaysay, macnaha askarigu isagoo xiriir ma ku jiro, dadka lala xiriiraya kuma jireen, kooxdii waardiyeynaysay ayaa xiriirkii ka lumay iyo kooxdan Saraaya al-Qudus. marka waxaa leeyahay shalay ayaana xiriirkaa ilaa maanta lama hadlin. meeshii ay joogeenna ciidamada Israa'iil ayaa soo galay qaybo ka mida. marka meeshana lama sheegin, sababtoo lama sheegi karo, waa sir ciidan waay. meeshaasay ku jiraan daa tira waa adaa istilmaamay. marka waxaa leeyahay marka arrinkaasaa jira shalay ilaa maantay ayayna marka sheekadaa socotaa. haddaba waa arki doonaa wixii warar soo kordha, inkastoo gudaha Israa'iil durbaba dadkii eheladoodii iyo wixii ay qaylinayaan ay leeyihiin wararka ah laga joogo, dhibaatada ha la joojiyo ku hay. wax dhagaysanaa male. Israa'iil dadkeeda ma dhageystaan nimankan madaxda ah sida la leeyahay, madaxda caalamka ma dhageystaan, ciday dhageystaan male. haddaba marka waxaynu u gudbaynaa khasaare kale oo ciidanka Israa'iil soo gaaray isla maanta. hadday galabkii qaybaan ka sheekaynay, haddana warar cusub ayaa ka soo kordhay. mar kale ayay ku soo laabteen meesha la yiraahdo Deir al-Balax. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera ay arrinkaa ka qortay. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in askari ka tirsan ciidanka Israa'iiliyiinta uu ku dhaawacmay dagaalo ka dhacay maanta deegaanka la yiraahdo Deir al-Balax. warbaahintu waxay sheegeen askarigaasi in dhaawiciisu uu halis yahay kadib markii la beegsaday sida la sheegay taangi uu askarigaasi la socday oo la yiraahdo Mirkava, kaasoo lala helay gantaalka garabka laga gano ee Al-Yaasiin 105. waxaana la sheegay in weerarkaas uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Deir al-Balax oo ku yaala bartamaha Gaza maanta oo Talaado ah.
haddaba kataa'ibul qasaam ayaa iyadu sheegtay in ay beegsatay taangiga Merkava oo ay ku dhufatay gantaalka la yiraahdo Al-Yaasiin 105 waxayna ku beegsatay xaafadda la yiraahdo Shaalihaat al-Jacfaraawi taasoo ku taala dhinaca koonfur bari ee Deir al-Balax waxaana la arkayay sida la sheegay maqribnimadii maanta diyaaradaha helicopteriska oo la sheegay inay halkaa ku degayeen iyagoo dhaawacyada halkaasi ka daabulaya waaye khasaarahaas isaguna dhacay oo meesha maartay nimankii nagtaa looga saaraa la leeyahay Deir al-Balax shalay ilaa maanta oo ay soo galeen faa'iido badan kama gaarina la leeyahay marka mar walba waxaad arkaysaa nimankii taangiya la gubay gaari ciidan sidaa la gubay kana la gubay ayagiya nagta laga saaray helicopterna meesha ku degaya maqlaysaa haddaba marka waa arki doonaa wixii warara ee soo kordha halkaas ayay joogtaa haddaba marka waxaa leeyahay jaamacadda carabta oo ay hor kacayaan laba dowladood oo golaha ammaanka ku jira jaamacadda carabtana ku jira ayaa golaha ammaanka codsi u gudbiyay in Gaza gargaar la geliyo Israa'iil lala hadlo ay gudbiyeen haddaba labada dowladood ee jaamacadda carabtana ka tirsan golaha ammaankana ku jira oo go'aankii jaamacadda carabta golaha ammaanka u gudbinaya Soomaaliya iyo Algeria labada dowladood marka waa ku jirnaa xaaladda sidii hore ma nihin marka waa meelaha waaweyn waa ka xariiftami karnaa waaye haddaba markaan idin tuso wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa goordhow qortay waxay leedahay jaamacadda carabta ayaa ka codsatay golaha ammaanka in markaa Israa'iil ay ogolaato in gargaarka la geliyo Gaza haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay dalabka jaamacadda carabta waxaa gudbinaya Algeria iyo Soomaaliya oo laba xubnood oo markaa iyagu ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka tirsan oo markaa maanta oo talaado ah ayay gudbiyeen si markaa loo sameeyo kulan golaha ammaanka uu yeesho oo degdeg ah oo arintaa looga hadlayo oo markaa go'doominta Israa'iil ay ku hayso Gaza looga hadlayo oo in la ogolaado gargaarka bini'aadanimada looga ogolaanayo ayaa la leeyahay haddaba waxaa la sheegayaa in golaha ammaanka uu kulan yeelan doono arintan ku saabsan adduunyada dhan way qeelinaysaa laakiin wax ka qaban kara mar gaajada meesha ka taagan waa idin tusay barnaamijkii galabka inta daawatay way daawatay inta aan daawan xogo muhiim ah ku jira barnaamijkii galabka aadaan uga hadlay dadka dhibaatada haysata mushkilada haysata dhibaatada caruurta haysata nafaqa darrada ka muuqata waagi cagabararkii oo kala waay ilaahay oo dadka u kaalmay marka hadda waxa leeyahay Soomaaliya iyo Algeria ayaa golaha ammaanka u gudbinaya jaamacadda carabta codsigeedii ayaga geynaya waa laba xubnood oo jaamacadda carabtana ku jira golaha ammaankana ka tirsan xubnaha aan joogtada ahayn la yiraahdaa laakiin xubno joogto ah jira shanta veto-ga golaha ammaanku iyagu isma bedelaan laakiin 10 kale waa 15 golaha ammaanka way isba bedelaan marka Soomaaliya waxa leedahay xubnaha aan joogtada ahayn oo mar walba la bedelo marka Soomaaliya way ku jirtaa sanadkan ayada iyo Algeria ayaa jaamacadda carabta uga jira awal imaarada ku jiray iyo waa laga waqtigooda dhamaaday way ka baxeen qadar xayeysiisa kadib war cusub oo hadda soo baxay oo leeyahay khamiista soo socota ayaa waxa kulan yeelan doona mas'uuliyiin Mareykanka Israa'iil iyo Suuriya tolo Turkiga maxaa looga saaray meesha haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas way noo soo socotaa xayeysiinta qaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena habeennimo haddaba qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa Suuriya iyo Mareykanka iyo Israa'iil ayaa la leeyahay khamiista soo socota kulan xasaasi ah qaadan doonaan arinta Suuriya looga hadli doonaa Israa'iil waxay ku dhagantahay nimankan Druuskan caawinaya Suuriyaanku waxay leeyihiin wadankan dadka annaga isku daba nimankan faraha naga qaadeen Mareykankuna marka waa dhexdhexaadinaya Turkiga oo ku daabnaa nimankii Suuriyaanka ahaa ayaa waxa leeyahay isaguna Mareykanku kula jira sheekada laakiin hadda casuumadan aan hadda arkayo saddexdaas ayaa isbalansaday inkastoo Turkiga inuu tago laga yaabo oo dhanka Suuriya ka yimaado isagana haddaba marka waa arki doonaa wararka waxaa la sheegayaa telefishinka Al-Arabiya ayaa goordhow qoray
kulan inuu dhex mari doono Mareykanka, Israa'iil, Suuriya kaasoo la filayo Khamiista soo socota in markaasi uu dhaco, waxaana laga wada arinsan doonaa sidii isfaham looga gaari lahaa xaaladaha ammaanka ee jira. haddaba warbixinta la yiraahdo mowqica la yiraahdo Axios ama warbaahinta Axios ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in mas'uuliyiin waaweyn oo Mareykanka iyo kuwa Israa'iil kuwa Suuriyaana la filayo in ay kulan yeeshaan maalinta Khamiista ah iyagoo ka arinsan doona xaaladaha ammaanka ee Suuriya ka jira sidii markaa wax looga qaban lahaa gaar ahaan dhinaca koonfurta Suuriya. haddaba mas'uul Mareykan ah ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi la filayo Khamiista inuu dhaco, waxaana la sheegayaa dhinacyada saddexda ah in markaasi ay kulankooda kaga arinsan doonaan, diiradda ku saari doonaan wixii dhacay toddobaadkan iyo toddobaadkii ka horreeyay ka dhacay Suwayda deegaanka koonfurta Suuriya, halkaasoo markaa dagaalo ay ka dhaceen, iyadoo dhanka kale Suuriyana ay sheegtay inay la yaab ku noqotay weerarada Israa'iil ay ku qaaday dhowaan madaxtooyada iyo wasaaradda gaashaandhigga magaalada Dimashq. marka kulankaas markaa Khamiista la qabanqaabinaya, kullay Israa'iil warkeedu meel masaarna la leeyahay, waxay rabtaa iska sameynaysaa. haddaba waxay ka soo baxay waa arkaynaa barnaamijkeena caawa akhyaaray oo aad kala socoteen channelkeena. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. fakari aragti waxaa qabta noo soo qor, sidoo kale barnaamijka like gareeya oo share gareeya. haddaad nagu cusub tahay subscribe ka ilooba YouTube-ka, Facebook-na follow gareey. nabadgelyo.